السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلك صونك مالنت عاشوراء مالنت قيمها بدن عاشوراء waxay ku beegan tahay 10ka bisha lagu jiro Muharram sanadka 1442 maalinta Sabtida ee bari waxaana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay in la soomo maalintan soonkaas oo ajirkiisu yahay in Allah subhanahu wa ta'ala ku dhaafo dunuubta ka dhacday sanadkii la soo dhaafay oo dhan bishan al-Muharram waxay ku jirtaa bilaha barakaysan ama sharfan ee ku weyn Allah agtiisa kuwaas oo 4 bilood ee xurmada leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu sheegay Qur'aanka Kariimka ah waana bilaha Muharram oo bishan hadda lagu jiro iyo Dhulqacda iyo Dhulxijja iyo Rajab sida la inoogu sheegay xadiis ku sugan Sahih al-Muslim waxa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yiri soonkan ugu fadliga badan soonka Ramadaan kadib waa soonka bisha al-Muharram waxa kale oo rasuulkeenu naxariis nabadgelyo korkiisa inoo sheegay in soonka maalinta Cashuura uu Ilaahay ku dhaafo dunuubta yaryar ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacday sidaas darteed waa muhiim in bishan la badiyo soonka cibaadada iyo acmaasha suuban waxa bishan si gaar ah ugu dhex jira maalinta loo yaqaan Cashuura oo maalinta 10aad ee bishan kuna beegan maalinta Sabtida ee bari Nabi Muuse alayhi salaam iyo muslimiinta la socday ka badbaadiyay kaafirkii weynaa Fircoon iyo culkiisii ku halaagsamay badweynta sidaas darteedna Nabi Muuse alayhi salaam ayaa maalinta soomay waxa kale oo soomay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam maalmaha muhiimka ah in la soomo Ibn Qayyim ayaa yiri wuxuu inoo sheegay soomida maalinta Cashuura ay leedahay 3 darajo oo kala in la soomo 3 maalmood oo ah maalinta Cashuura salaasada Sabtida Axadda Isniinta maalinta ka horeysa Isniinta bari maalinta ka horeysa bari maanta oo Jimcaha iyo maalinta ka dambaysa Arbacada